xogayaha arrimaha dibadda xisbiga wadani maxamed cismaan fadal oo maalmihii u dambeeyay safar ku joogay magaalada Burco ayaa xog wareysi kooban uu siiyay Hon Cable TV waxaanu ugu horeyn ku weydiinay ujeedada safarkiisa xilligan uu ku yimi magaalada Burco. safarkeygana Burco ku yimi laba arrimood baa ugu muhiimsan mid waxa weeyaan weynagan ognahay oo dalka imika abaaro iyo warwar badan ayaa haya oo gobolada bari gaar ahaan haya in abaarta fahmo oo aad soo dhageysto oo dadka xaaladooda la ogaado oo wixii marka talo iyo taakuluba nalooga baahan yahay inaanu maartay iyo dawladda cid walba caalamka ugu dhawaaqna ayaan u imi talabaadna waxa weeyaan inaan xisbigii iyo arrimihiisii oo imika si xawliya uga socda gobolada bari iyagana inaan dadkii wareysano. Master Fadal oo ka jawaabaya in shirweyne xisbiga wadani ay dad badan ku tilmaamaan inaanu si cadaalad u qabsoomin isla markaana dimuqraadiyad ka jir xisbiga ayaa waxa uu yiri aanu arkaa shirkii xisbi qabsadee ugu dimuqraadisanaa Somaliland imika intaynu dimuqraadiyadda wadnay xisbiyada shararka xisbiyada wadnay inuu shirka wadani ahaa. waxaan ku sheegayaa doorasho meesha ka dhacaysay dimuqraadiyaddu de in la tartamo weeyaan gebigeeduba dimuqraadiyaddu macna kale leedahay ma jirto tartan xalaal in la galo marka aniga waxay la tahay dhaqanka xisbiyada iyo shirarkooda ayuu noqonayaa shirkaas marka la qoray taariikhda la daraasadeeyo. sidoo kale xogayaha arrimaha dibadda xisbiga wadani Master Fadal oo ka jawaabaya su'aal ahayd kalsoonida xisbigooda ku qabo qabsoomida doorashooyinka madaxtooyada ayaa waxa uu yiri anagu waxaanu qabnaa kii horena kamaana raalli ahayna waa la kordhiyay kala saarkiina kamaana raalli ahayna waa la kala saaray intaba waxa la jabiyay sharci maxkamadeed oo adduunka iyo inaga iyo dadkeenuba ay ogaayeen maantana kan waxa weeyaan kii ugu dambeysay ogeydeen ee maxkamadda gudoomisay ka maxkamadaanu ogol lahay kaasaanu gudida doorashooyin kara ay naga ballan qaadeen inay diyaar u yihiin wax laalo wax ka dhiman jirin waana sida awadeed baad arkaysaa inaanu shirkayga qabsano murashaxayga soo saarno murashax ku xigeenkayga soo saarno waxaanu u diyaar gareynaynaa inay doorashada u diyaar garoobaan. maxamed cismaan fadal oo markale aan weydiinay saameynta garabka la magacaabay toosinta iyo cadaaladda xisbiga wadani uu ku yeelan karo xisbigooda ayaa waxa uu ku jawaabay waladan imika la baxday ku magacaabaysa garabka waxaan isleeyahay wadani malaataas ka socon mayso waayo wadani cidna eryi maayo qofkii wadani ka baxayona xaq baad leedahay oo waa dimuqraadi dalku qofkii ku jirayona xaq baad leedahay waa dimuqraadi hadii looga baahan yahay la wada hadlana diyaar baa loo yahay waqtigii garab lama joogo laakiin dariiq khalad weeyaan ma soconayso saameynna kuma yeelanayso wadani. Kiis Axmed Digaale Hon Cable TV Burco.